su'aal xagga sare ka imaatay kuna socoto dhammaan khalqiga. Waa maxay malaha aad Rabbi ka filaysaan? Maxaad iga aaminsan tihiin? Sidee waaye aragtida aad iga haysataan? Laakiin way ka micno iyo miisaan badan tahay su'aal oo keliya. Dabcan haddii uu Rabbi ku weydiiyo, waa lagama maarmaan in aad ka jawaabto, balse yaad u jawaabaysaa? Allah uma baahna jawaabtaada. Allah waa midka og wax walba oo inaga qarsoon. Wuu og yahay sirta iyo waxyaabaha qarsoon. Goortii uu Allah ku weydiiyo, wuxuu kala gol leeyahay in aad naftaada u jawaabto. Imtixaankan uu Alle ku imtixaanayana, qof aan adiga ahayn ma ogaanaya natiijada imtixaankaas. Famaa dhannukum birabbil caalamiin? Waa maxay malaha aad Rabbi ka haysataan? Marka hore aan ka jawaabno waa maxay kalsooni. Adiga kalsooni kuma qabtid dadka wadooyinka iska maraayo. Waxaa taas caddayn u ah, ma jiro qof wadada uga tagaaya gaarigiisa oo furan. Allah waxa uu abuuray kalsoonida, waxa uuna geliyay quluubta aadanaha. Ma kasban karo qof aanan mudnayn. Kalsoonidu waa qaali, laakiin si fudud kuma imaato, si fududse waa lagu waayaa. Aan wax yar ka fikirno sida aan ula dhaqanno qofka aan aad ugu kalsoonnahay. Saaxiib aad u sheegayso sirahaaga oo idil, adiga oo aanan cabsi ka qabin in uu maalin uun adiga ku adeegsado ama kugu dhibaateeyo. Tan waa darajo ka mid ah darajooyinka kalsoonida, laakiin waxaa jiro mid aad uga sii weyn. Ilmaha yar ee aabihiis ciyaarsiinayo, korna u bobootinayo wuu qoslayaa, isagoo faraxsan, sababtoo ah kalsooni ayuu ku qabaa aabihiis in uusan dhulka ku sii daynaynin. Rakaabka diyaaradda waxay naftooda ku aaminayaan kabtan aysan garanaynin. Bukaanka waxa uu saalada qaliinka korayaa isagoo aanan ka cabsanaynin in dhakhtarku wax qaldo oo uu naftiisa waayo. Kuwaani waa kalsooni bani aadamku ku qabo bani aadam kale. Balse halkan ayay imaanaysaa su'aasha Rabbi ee ah, famaa dhannukum birabbil caalamiin? Haddii ay tahay kalsoonida iyo malaha aad bini aadamka ka filaysaan, haddaba intee in la eg waaye kalsoonida aad Alle ku kalsoon tihiin? Ma isku raacsannahay in kalsoonidan uu Alle mudan yahay, halka aynu ku aaminay aadame qaldami kara? Imise waxyaabood oo kugu adkaaday ayaad Allah weydiisatay kuna siiyey? Imise ayaad xanuunsatay oo uu ku caafiyey? Imise aad cabsootay uu xasilooni ku siiyey? Imaam Muslim ayaa saxiixiisa ku soo saaray xadiis nebiga uu yidhi naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, yuusan dhiman axadkiinna isaga oo aanan wanaajinin malaha uu Rabbi ka malaysanaayo. Ila suuraysa Nebi Muuse calayhi salaatu wassalaam, isagoo ku sugan xaalad cajiib ah. Waxa uu la soo tegay isaga iyo intii rumaysay. Gadaashoodana waxaa ahaa Fircoon iyo ciidankiisa. Hortoodana waxaa ahayd baddii. Dhammaan xeerarka caalamka iyo qawaaniinta waxa ay isku waafaqsan yihiin in ay halaagsamayaan. Nebiyullaahi Muuse qoomkiisa iyagoo cabsanaya ama xaaladda halkaas ka jirta cabirayna waxa ay dhaheen, qaala asxaabu Muusaa innaa lamudrakuun. Asxaabtii Nebiyullaahi Muuse la socotay waxa ay dhaheen waan halaagsannay. Waxay yaqiinsadeen in ay halaagsameen. Kelimadda mudrakuun waxa ay ku imaatay iyadoo ka horeeya laamu tawkiid, taas oo ka dhigan in ay si buuxda u rumaysteen in aysan badbaadaynin. Xeerarkeenna caadiga ah ayaaba sidaas oo kale dhahaya. Fiisigiska ayaa sidaas qaba. Bini aadamkana macquul uma ahan in uu biyo iska dhex maro keligiis. Laakiin falcelinta Nebiyullaahi Muusaa calayhi salaam waxa ay ahayd, kallaa inna maciya rabbii sayahdiin. Rabbigay ayaa garabkayga ah, wuuna ii hanuunin doonaa. Sidoo kale Abuubakar markii uu godka kula jiray rasuulka sallallahu calayhi wasallam, gaaladuna ay ku hareersan yihiin, waxa uu dhahay rasuul Allow, haddii uu mid ka mida lugihiisa hoostooda fiiriyo wuuna arkayaa. Rasuulka waxa uu ugu jawaabay, ha murugoonin, Allah ayaa garabkeenna ahi. Allah waxsiintiisu waxa ay ku xiran tahay hadba inta malaha aad ka qabtaa uu wanaagsan yahay. Haddii geedii iyo rooble Alle baryaan iyagoo isla yaqiintaas leh, wuu ka aqbalayaa. Haddaba dhammaanteen aan wanaajinno xiriirka Allah inagala dhexeeyo, oo aan nafafyaasheenna ku waajibinno in aan ka jawaabno su'aashan. Haddii ay tahay sidan malaha aan aadanaha kale ka malaynayno, waa sidee malaha aan Allah ka filayno? Famaa dhannukum birabbil caalamiin?